Dalka Algeria waa dal madax-bannaan waxa uuna xad la wadaagaa dhowr dal. Dhinaca waqooyi waxa uu xadka la wadaagaa Badda Dhexe Mediterranean-ka, dhinaca waqooyi-bari dalka Tunisia, dhinaca galbeed dalka Morocco, dhanka koonfur-galbeed Saxaraha Mauritania iyo Mali, ilaa iyo koonfur-bari Niger, dhanka bari oo uu xad kala wadaagaa dalka Liibiya. Algeria waxaa gumaysan jiray dalka Faransiiska, waxa ayna madax-bannaanidoodii qaateen Luulyo 3, 1962. Madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Algeria waxa uu ahaa Ahmed Ben Bella, waxaase afgembiyay Houari Boumediene sanadkii 1965. Caasimadda dalka Algeria waxaa la yiraahdaa Algiers. Baaxadda dhulka Algeria waxaa lagu qiyaasaa 2,381,741 kiilomitir-iskuweer. Tirakoоб la sameeyay 2018 waxaa la ogaaday in dadka ku nool dalka Algeria ay tiradoodu dhan tahay 42,200,000 oo qof. Luqadda rasmiga ah ee dalka waa Carabi iyo Berber. Luqadaha kale ee la isticmaalo waxaa ka mid ah luqadda Faransiiska. Algeria waa dal Muslim ah, Sunni ah. Lacagta laga isticmaalo dalka Algeria waxaa la yiraahdaa diinaar. Laf-dhabarka dhaqaalaha Algeria waa wax-soo-saarka batroolka. Waxa ay xubin ka tahay ururka OPEC tan iyo 1969. Sidaas oo kale waxa ay xubin ka tahay ururo ay ka mid yihiin Ururka Jaamacadda Carabta, Ururka Iskaashiga Islaamka, Midowga Afrika iyo Ururka Qaramada Midoobay. Walaal channelkana subscribe, like and comment inuu saar hadaa ku cusub tahay.